السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل لي برنامجنا عافمات كوكا داوتان كنالك عافمات كيدريال عافمات موضوعنا ayaa waxa uu ku saabsan yahay waxa loo yaqaan gallstones ama dhagaxaanta kala xameetida gallbladderka ama xameetidu waa organ yar taas oo ka hooseysa beerka waxaana qaybta sare ee midig xigta kaga taala ubucda waa kiish yar oo lagu kaydiyo waxa loo yaqaan bile midabkiisu waa cagaar hurgud xigeena marka laga hadlayo dareerahani shaqadiisu waxay tahay inuu burburiyo waxyaabaha markaa duxda ah ama sidoo kale dufanka ah waxa sababa marka laga hadlayo gallstoneska ama dhagaxaanta xameetida gala waxa la yiraahdaa 80% waxa sabab waa dhagaxaanta xameetida ku sameysma maadada loo yaqaan cholesterolka marka ay ku badato bile-ka ama ay ku badato gallbladderka 20% dhagaxaanta marka xameetida gala waxay ka sameysmaan calcium salt iyo sidoo kale maadada loo yaqaan bilirubin waa marka la burburiyo unugyada casas dhiiga xiraadiga ka soo hara ayaa loo yaqaanaa bilirubin marka labada qaybood ayaa u sababa inuu sameysmaan waxa loo yaqaan gallstones ama marka dhagaxaanta gala xameetidu hadii marka ay sare u kacdo ama ay badato maadada cholesterolshu isla markaana ay ku badato bile-ka inta badan waxay keentaa in midabkiisu ay noqdaan dhagaxaanta marka sameysanta huruud ay noqdaan sidoo kale waxay noqdaan dhagaxaan marka aad u adag kuwaas oo ku sameysma beerka meelaha kale oo ka yimaado gallstonesku ama dhagaxaanta xameetida gala waxa kamid ah marka la soo saaro xaddi aad u fara badan oo maadada loo yaqaan bilirubin meelaha marka ka imanaya waxa kamid ah markuu beerku aad u burburiyo unugyada dhiiga casas ee marka iyagu gaboobay waxa kale oo kamid ah xaaladaha qaarkood ay kamid yihiin marka dhaawac soo gaaro beerka waxa kale oo kamid ah dhibaatooyin kale oo markaas iyaguna la soo dirsa dhiiga la soo dirsa waxa loo yaqaan blood disorderska waxyaabahaas oo markaa isbiirsaday ayaa sababi kara in ka badan xaddiga caadiga inuu soo saarayay beerku ee markaa unugyada casas dhiiga in ka badan markaa inay soo baxdo dabeetana ay keento inuu sameysmo waxa loo yaqaano dhagaxaanta marka xameetidu ama gallstonesku sidoo kale dhagaxaantan waa kuwa adag midabkoodu waxa weeyaan waa madow bunni xiga iyo sidoo kale dhagaxaan bunniya labadaba uu noqon kara maadaama ay ka samaysan yihiin maadada loo yaqaan bilirubin oo asalkeedu yahay asaan tahay calaamadaha lagu garan karo maxaa kamid ah gallstoneka ama dhagaxaanta xameetida gala calaamadaha lagu garan karo waxa kamid ah qofku xanuun ka dareema qaybta sare ee midigta maadaama ay ku yaalaalkaas waxa loo yaqaan ama ay ku taalo gallbladderka ay ku taalo calaamadaha waxa kamid ah qofku inuu yeesho yelaaligo ama lalabo inuu yeesho matag inuu yeesho ayaa kamid ah waxa kale oo kamid ah in qofka kaadidiisa noqoto mid madow oo markaa casar xigena waxa kale oo kamid ah in qofka saxaradiisa markaa isbedesho iyadoo noqonaysa mid cad maadaama uu midabeeyo saxarada bile-ku midabeeyo bile-kana laga soo saaro gallbladderka ama xameetida waxa kale oo kamid ah in qofku markaa uu xanuun ka dareemo calooshii waxa kale oo kamid ah in qofku markaa uu yeesho naqas fara badan calooshiisa markaa ay sameyso waxa kale oo kamid ah in qofku yeesho shuban uu yeesho kale oo kamid ah qofkaas inuu dheefshiid xumo ay ku dhacdo cuntadii markaa uu gaabis ku yimaado maadaama bile-kii ama gallbladderkii ay markaa dhibaato ka jirto waxa kale oo kamid ah qofku inuu yeesho dhidid fara badan mararka qaarkood waxa jira xaalad ka duwan tahay soo sheegnay oo iyadana loo yaqaan qofka inaan laga arag haba yaraatay wax calaamada marka laga hadlayo gallstoneska ama dhagaxaanta xameetida gala xaaladan mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaan qofku aanu yeelan wax calaamada sida tusaale ahaan oo kale wax xanuun inaanu dareemin dabeetana taas waxay keenaysaa in dhagaxaantii marka ugu dambeyn ay sameeyaan dhaqaaqa sameeyaan dabeetana ay xidhaan kanaalkii ama dhuuntii markaa uu kasoo baxayay bile-ku soo marayay dabeetana lagu burburinayay waxyaabaha faadka marka waxa laga yaabaa marka inay xidho dhuunta xidho markaasaa lagu war helaa maadaama qofkan aanu lahayn haba yaraatee wax calaamada waxyaabaha marka khatarta ah ee keeni kara xameetida dhagaxaanta gala waxaa kamid ah inta badan marka laga hadlayo dumarka ama haweenka iyo raggu waxa aad ugu badan baa la yiraahdaa haweenka aad ugu badan taas marka waxyaabaha keenaya ayay kamid tahay waxa kale oo kamid ah haweeneyda uurka leh sidoo kale waxa ku dhici kara dhagaxaanta xameetida ama gallstoneska waxa kale oo kamid ah hadii qofka family-giisu ama marka dadku ka soo jeeda ay qaarkood lahaan jireen dhagaxaanta xameetida gasha iyadana waxa laga yaabaa marka in qofkaas uu yeesho waxa kale oo kamid ah qofku oo marka noqdo qof aan jimicsan ama dadka inta badan iyagu aan jimicsan ama jimicsiga sameyn iyadana sidoo kale waa suurtagal inuu ku dhaco dadka marka khatarta ugu jira ay kamid yihiin waxa kale oo kamid ah dadka qaata cuntooyinka ay marka aad ugu badan tahay ama aad ugu badan yahay subagu waxa kale oo kamid ah dadka iyagu markaas macaanka ama sonkorta leh
dadka iyaguna sidoo kale qaata dawooyinka hoos u dhiga maadada cholesterolka ayadana sidoo kale iyaguna khatar ugu jira dhagaxaanta xameetida gala sida loo baaro xanuunkan ama marka laga hadlayo baaritaankiisa marka laga hadlayo qofku waxa laga eega laba meelood mid waa physical oo qofka muuqaalkiisii midna waxa weeyaan in marka qofka la saaro ultrasound iyo machine iyo waxyaabo lamid ah marka qaarkood in dhiig laga qaado ayaa marka kamid ah sida loo baaro waxa kamid ah tusaale marka laga hadlayo physicalka in qofkii indhihiisa la eego sidoo kale maqaarkiisa ama dubkiisa la eego hadii marka lagu arko wax isbedel oo marka ku yimid tusaale kale in indhihiisa huruud noqdeen maqaarkiisa huruud noqday taas waxay ka dhigan tahay inuu marka uu jiro wax loo yaqaan jaundice kasoo ka imanaya in maadada loo yaqaan bilirubin marka beerkiisu aad u burburanayo unugyada dhiigga asaasa taas ayaa marka kamid ah calaamadahaas waxa kaloo kamid ah in qofka la eego oo lagu eego baaritaano kale la marayo baaritaanada waxa kamid ah soo sheegnay ultrasoundka kamid ah ultrasoundku marka wuxuu sawir ka soo qaadaya ama uu eegaya qofka uu buucdiisii iyadoo marka la eegayo inay jiraan wax loo yaqaano gallstones in marka ay jiraan waxa kaloo kamid ah qofka dhiig laga qaado si marka loo hubiyo maadada bilirubinta marka cabirkeeda in la eego iyo marka sidoo beerku u shaqeynayo inahaas taa kamid ah marka sida loo baaro daweynta marka laga hadlayo sida loo daweeyo gallstoneka ama dhagaxaanta xameetida gala inta badan marka laga hadlayo wax dawaamo laha wax loo yaqaan gallstonku ama dhagaxaanta xameetida gala wax dawaamo laha laakiin qofku markuu dareemo beenka ama uu marka xanuunka dareemo oo kaasina marka uu noqonayo mid qofka waqti yar haynaya ma dhowr saacadood haynaya ayaa waxa la sameeyaa qofka in la siiyo waxyaabo marka suurtagal tahay in marka ay burburiyeen dhagaxaanta marka xameetida ku sameysmay hadii marka ay sii raagaan ama marka qofku waqti badan uu sii dareemo gallstonekii marka qaarkood waxa dhacday in qofka la mariyo qaliin loo diro waa hadii marka laga maarin waayo hadii marka ay xaaladdu iska tahay mid sahlan waxa la siiyaa inta badan dawooyinka qofka xanuunka ka biinaya oo ay macquul tahay qaarkood in marka dawooyinkaasi ay burburiyeen ama ay hoos u dhigaan dhagaxaanta badan ee ku sameysmaya xameetida ku sameysmaya sida looga hortagi karo dhagaxaanta marka kaliya ku sameysma ayaa iyaduna sidoo kale muhiim ah in sheegno balse waxa jira qodobo aan marka iyaga la control karin ama laga hortagi karin kuwa waxa kamid ah daadii baa kamid ah waxa kamid ah marka jinsiga qofka lab iyo dhadig ku yahay waxa kaloo kamid ah in qofku alka ka soo jeedo oo mararka qaarkood originka qofka ayay ku xiran tahay waxa loo yaqaan ku sameysanka dhagaxaanta xameetida ku dhaca kuwaas marka maaha marka kuwa la xadidi kara iyagu qodobada kale iyaguna muhiimka waxa kamid ah in qofku uu noqdo qof had iyo jeer ku dadaala inaanu cunin waxyaabaha marka dufanku aad ugu badan yahay waxa kaloo kamid ah in qofku ku dadaalo cunitaanka khudradaha waxa kaloo kamid ah qofku inuu miisaankiisa xadido sidoo kale waxa kamid ah inaanu qofku miisaankiisa hal mar marka hoos u wada ridin ama miisaankiisa aanu dhimin inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeeni oo ku saabsan dhagaxaanta xameetida gala waad ku mahadsan tahay daawashadaada